Assalaamu calaykum. Ganacsigu kuma xirna inaad ku bilowdo shirkad weyn ama inaad alaab qiimo leh soo ikhtiraacdo, laakiin mararka qaar waxaa ku hirgeli kara fikrad yar ama shirkad aad ku bilowday wax iska basiid ah oo fudud, iyadoo shirkadaaduna ay isu rogi karto mid qiimo ahaan suuqyada caalamka ka joogta lacag balaayiin dollar ah. Barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadanaynaa sida ay u guulaysatay fikrad ganacsi oo ay lahaayeen laba nin oo Maraykan ah oo lagu kala magacaabo George Bodecker iyo Lyndon Hanson, kuwaas oo sanadkii 2002 aasaasay shirkad samaysa kabaha ama dacaska lagu magacaabo Crocs. Dacaska shirkadda Crocs ayaa ka samaysan caag ama goome, waxaana ay ka duwan yihiin dacaska caadiga ah ee khafiifka ah iyo weliba kabaha saandalka ah. Fikirka shirkadda Crocodile oo magaceeda loo soo gaabiyo Crocs ayaa durbadiiba waxaa ka hor yimid dad badan oo caalamka ku nool oo kabahan ama dacaskan caaga ah ee afka ballaaran u bixiyey kabaha ugu foosha xun dunida, the ugliest shoes in the world. Inkastoo kabahani dabacsan ee rabarka jilicsan ka samaysan ay dad badan iibsan waayeen, ayaa haddana waxaa jeclaystay xirfadlayaal fara badan oo dunida daafeeda ku nool, sida dhaqaatiirta, kalkaaliyayaasha, cunto kariyayaasha, dadka ka shaqeeya maraakiibta oo si gaara ugu baahan kaba aan qoyayn. Sidoo kale waxaa dacaskan ku qancay dumarka iyo carruurta iyo dadka ka shaqeeya shaqooyinka saacadaha badan la taagnaanayo, kuwaas oo u baahan kaba jilicsan oo lugaha u fiican. Kabihii foosha xumaa ayaa si aayar ah ugu faafay adduunka, gaar ahaan carruurta oo guryaha iyo iskuulkaba ku jooga, waxaana sanadkii ugu horreeyey ee 2002 ay shirkadda Crocs faa'iiday $24,000 oo dollar, halka 2005 ay u soo xarootay $108 milyan oo dollar. Iyadoo xaalku meel fiican u marayo shirkadda Crocs ayaa waxaa dhacay hoos u dhici dhaqaale ee 2008, taasoo keentay in hoos u dhac weyn uu ku yimaado kabaha caanka ah ee shirkaddan, waxaana maalgashadayaasha iyo khubarada dhanka dhaqaalaha ay wakhtigaasi tilmaameen in shirkadda Crocs ay ka baxday hawada. Qiimaha halkii saami ee shirkadda Crocs oo markii hore suuqa ka ahaa $69 ayaa hoos u dhacay isagoo gaaray $1, waxaana shirkaddan dacaska caaga ah soo saarta ay shaqada ka joojisay 2,000 oo shaqaale ah, iyadoo khasaartay $185 milyan oo dollar. Rag waa kuwii tashadee, Crocs isma dhiibin, waxaana ay bilaabeen inay soo saaraan waxyaabo cusub oo hor leh, sida inay keeneen naqshado cusub oo kaba ah iyo wixii la mid ah. Laakiin taasi kama caawin shirkadda Crocs inay sare u soo kacdo. Mar kale ayay isku noqdeen raggii lahaa shirkadda dacaska samaysa ee Crocs, waxaana markan ay la yimaadeen qorshe cusub, iyagoo beddelay siyaasaddii shirkadda. Kaartadan cusub oo u suuro gelisay inay maanta ka mid noqoto shirkadaha ugu waaweyn adduunyada ee kabaha soo saara, sida Nike iyo Adidas. Tallaabadii koowaad ee ay Crocs qaaday waxay ahayd iyadoo joojisay soo saarista dhammaan kabihii iyo qalabkii kale ee kala dhantaalay magacii shirkadda, waxaana ay ku ekaatay oo keliya farsamaynta kabaha caaga ah ee ay shirkaddu caanka ku tahay. Waxaa kale oo shirkadda Crocs ay joojisay 80% waxyaabihii ay soo saari jirtay, iyadoo ku qanacday inay soo saarto 20% oo qura, taasoo keentay in dacaskii caanka ahaa ee caaga ka samaysnaa uu mar kale sare u kaco. Tirada laga iibsaday oo gaartay 25% sanadkii 2019. Inta badan waxa ay Crocs xirtay xarumihii ay ku kala lahayd daafaha caalamka, iyadoo dadaalkeeda oo dhan isugu geysay in wax soo saarkeeda ay ku iibiso dhanka internetka. Tallaabooyinka kale ee ay qaaday shirkadda Crocs si ay mar kale dib ugu soo rogaal celiso waxaa ka mid ahaa inay xiriir wada shaqayn la yeelatay qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee adduunka ee dhinaca labiska iyo moodada, sida shirkadda Isbaanishka ah ee Balenciaga iyo shirkadda kale ee Talyaaniga ah ee Gucci, halka sidoo kalena ay xayeysiin ka dalbadeen fanaaniin caan ah oo Maraykan ah sida Post Malone iyo Ariana Grande. Iyadoo labiska caalamku uu isbedelay, ayaa waxaa inta badan dhalintu ay bilaabeen inay xirtaan kabaha caaga ah ee jilicsan ee Crocs ee guryaha lagu joogi karo, mararka qaarna suuqa lagu mari karo, taasoo qof walba uu si fudud uga dalban karo internetka, kadibna gurigiisa loogu keenayo. Natiijadii ka dhalatay dadaalkaasi ayaa noqotay in dakhligii shirkadda Crocs uu sare u kacay, kaasoo ka batay $1 bilyan oo dollar, iyadoo sicirka halkii saami ee shirkaddan uu gaaray 500% muddo 2 sannadood gudaheed ah. Si ay magac fiican u yeelato, waxaa shirkaddan kabaha caaga ah samaysa ee Crocs ay Maraykanka gudihiisa iyo caalamka u kala dirtay 100,000 oo kabo lacag la'aan ah oo ay ugu tala gashay dhaqaatiirta iyo kalkaaliyayaasha caafimaadka ee la tacaalaya xanuunka dunida aafeeyey ee koronaha, kuwaas oo shaqada caafimaad ku jira saacado aad u fara badan oo nasiino la'aan ah, waxaana isbitaalada ay kabaha bilaashka ah gaarsiiyeen ay ku kala yaalaan Maraykanka,
Austria, France, Jarmalka, Holland iyo Ingiriiska. dhanka kale waxaa kordhay dalabka kabahan jilicsan ee online-ka maadaama wadamada kala duwan ee caalamku ay galeen bandow yaan bannaanka loo bixin ah si looga gaashaanto fayruska adduunka ku faafay waxaana maadaama ay dadku waqti dheer guryaha ku xirnaanayaan ay u baahdeen dacas jilicsan oo ay guriga ku joogaan maanta Crocs waxay ka mid tahay shirkadaha ugu waaweyn ee sameeya kabaha waxaana dadka isticmaala kabaha caaga ah ee caanka ku tahay shirkadan u badan caruurta da'da yar iyo dadka doonaya inaysan cagaha ka daalin inta ay ku guda jiraan shaqo maalmeedkooda haddaba ujeedada aan qisadan u soo qaadanay ayaa ah in qofku uu isku dayo inuu farsamo cusub la yimaado fikrado cusub oo ganacsi waxaan ognahay inay maanta jiraan shirkado caan ah oo soo saara waxyaabo aad u sahlan balse ganacsigooda uu u bulaalay ilaa ay gaareen heer shirkadahoodu ay noqdaan kuwo adduunka caanka ah oo dadkuna ay weli iibsanayaan waxyaabaha ay soo saaraan fikrad ganacsi oo cusub nuucay doonta ha ahaatee haddii aad ku sabarto isla markaana aad isku daydo inaad hormariso oo farsamooyin cusubna aad ku saa'idiso waxa hubaal ah in muddo gaaban gudaheeda uu ganacsiga uu ku kobci doono faa'iido ka badan intii horena aad ka heli doonto haddii eebbe idmo inkastoo ay wanaagsan tahay in ganacsiga la kala duwo oo uu qofku la yimaado fikrad cusub oo aan horey loo daahfurin ayaa haddana tusaale waxaa jira in ganacsiga kula midka ah aad kaga sare mari karto haddii aad la timaado barnaamijyo iyo adeeg cusub oo aysan iyagu hore u samayn taasoo aad kaga duwanaanayso meheradaha kale dadkuna ay kugu jeclaanayaan waayo waxaad la timid farsamooyin ka duwan kuwii hore loo yaqaanay daruuraha